marka isma aan lahayn waa lagu yeedhayaa hadda hadalba halkan kaaga furan aan ku bilaabo inaan salaamo dhammaan mudanayaasha iyo marwooyinka madashan ku sugan oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka labada aqalba iyo dhammaan wasiirada iyo shacab weynaha madashan ku sugan waa maalin aynu ku gunaanadayno usbuuc aynu ku jirnay xafladayn dabaaldeg xusid iyo weynayn taariikh iyo ka hadalka waxa inoo qabsoomay iyo waxa inoo dhiman dhalinyaro kaftana ku bilaabo qolooyinkii fanka iyo suugaanta mar waxaan isla warnimankii reer waqooyi ee bahasha sameyn jiray waaba maqnaayeen waxaanu xigmada xagee laga keenay laakiin waxaad moodaa dee rag hidaysanaya indhabuur iyo yamyam iyo raggii halabuurka ahaa ayaa weli sii nool oo calanka suugaanta kor u haya aad baan run ahaantii ugu bogayahay sidii kala duwan halkan laga qaaday ee waddaniyadda ka hadlayey waxaa laga yaabaa in heesaha dal xoreeya madaxweynuhu u badnaa laakiin madaxweynuhu hawl walba rag buu u leeyahay taana ha la ogaado iyo gabdhawaan sida calanku uu astaan ugu yahay ilaan waa maro calanku wax lagu xardhay qolo waliba calan bay samaysataa sida calanku uu astaan ugu yahay himilada hiigsiga iyo rajada qoomiyada ay leedahay uu astaan u yahay baa madaxweynuhuna uu markaa astaan u yahay xukuumadda markaa jirta xumaan iyo samaan wixii yimaada dee kulli qofka u sare lagala xisaabtamaya waa isaga marka guulaha soo hoyday haddii odayga loo huwiyo annaguna waxba kama qabno raggiisii baanu nahay taa markaan intaa kaga baxo waxaan rabaa maanta hadalkayga inaan ku soo ururiyo hal qodob oo salka ku hayn doonta qadiyadda midnimada maalinta aynu xusaynaa iyo maalmahaynu xusaynay midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed bay ka hadlay markaad suugaanta Soomaaliyeed dhageysato waxaad moodaysaa af lagu xuso wadaniyad iyo qadiyad inuu afka ugu mudan yahay oo halkaa dhaliil inagama haysato shakhsiga Soomaaliga markaad eegtana shakhsi tamar darro iyo liidnimo u dhashay ma madaxweyne xalay waxaan daawanayay bariyahan beeraha iyo dadka sida loo bedel lahaa baan ka fikirahay nin Soomaaliya oo meel toogan la yiraahdo oo maladadku aanay maqalba oo magaalo madaxdiisa Loomeel la yiraahdo intuu magaalo madaxdii ka guuray tuulo tagay oo loo ku dhaqada waa nin Soomaaliyeed ninkaasi ummadda uu dhex jabaaxayo inkastoo dad aynu sheegnahay ay yihiin iyo webiyada uu goynayo iyo kaymaha uu dhex marayo waad yaabaysaa kullay waxaan isla wada murugtan uu ka tagay nin buu ahaa degdeg ku jireen ninkaas cabsi kama muuqato oo kalsooni darro kama muuqato oo nin ciriiri ku jiraba mahaba laakiin dalkaas wuxuu ka xusay wiil Soomaaliya wareysanayo mala sujuwaya wuxuu war meeshan maxaad ku dooratay wuxuu inuu meel la isxasdiyana maaha waana meel neefku hadduu ka lumo 10 cisho ka bacdi ay qoomiyadda meesha degan ku keenayso waana dad muslima warbal ninka intaasoo dal intuu dhaafay toogo ka degay haddii dalkiisu uu nabad u ahaan lahaa soo wax badan ma soo saaray waqtigii safarka kaga lumay baaba uu badbaadsan lahaa inkastoo maanta aynu aad u marxabaysannahay oo dabaaldega iyo aynu ka hadlayno guulihii aynu gaadhnay haddana waa lagama maarmaan inaynu isxasuusino inay jiraan halisa waaweyn inagu geedaaman oo ay ka mid tahay midnimadii oo kala dhantaalan oo haddana duulaamo culus iyo dhaawacyo culus ay ku soo kordheen duruufo bini'aadnimo oo ina saamayn kara oo waxaa la saadiranaya daadad waaweyn inay dhacaan laakiin sida maantaba uu sheegay safiirka Mareykanku wuxuu yidhi dadka Soomaaliyeed maraanu xafladoodii la joognay waa dadka ugu adkaysiga badan ee loo qirayo duruufahaas oo dhan waynu ka bixi doonaa waxaan rabaa qadiyad madaxweynuhu uu istaagay oo 4 sano ka hor uu nagala hadlay oo markuu doorashada galay uu ka hadlay oo maanta midhaheedii aynu aragno inaan bal miisaanka aynu saarno iyo ahmiyadda midnimada ay u leedahay qadiyadaasi waa abaabulidda siyaasadda waxaan ugu bilaabay heesaha iyo shakhsiga Soomaaliga iyo suugaanyahanku dhaliil ma leh laakiin waxa dhaliilan ee qarankeeni kala dhambalay
وسياسة أن أبابلنين وأن حسلونين وأن هنان لهين إن بدن بو مدحوينه كهدلا إن دالكن سياسة دي لأورجانيز غرية أو لأبابلو لجانجويو ولا جب مرمان calanku hasar reeyo baynu maanta oo dhan leenahay calanku wuxuu astaan u yahay qaranka Soomaaliyeed oo sidoo qof nool oo kala ah qofka noolna marka dhakhtar la keeno 5 ama 4 wax oo la yiraahdo vital signs baa laga eega wadnihiisu ma garaacaya ma neefsanaya blood pressure-kiisu waa intee qarankeena Soomaaliyeed marka la qiimeynayo waxa lagu qiimeynaya dalkaasi dimuqraadi horta dastuur ma leeyahay waxaan u maleynayaa dhaliisha maanta inaynu iska maydnay oo tacabadan aynu gelinay inaan laynagu tilmaamaynin waa dal dastuurkiisu uu qabiye yahay taasina guul heesa badan iyo bogaadin badan mudan weeye qodobka labaad waxa weeye cadawgii magaaladan aynu ka mari weynay iska daacirifyada ee al-shabaab la oran jiray ee qofku iridiisa aanu istaagi jirin in shalay wixii curudaha aynu soo bandhignay dabaaldegana magaalada cirif walba oo magaalada iyo dalka guud ahaanba laga dhigayo waa guul rabbina inagu galladay ragna soo hooyay waxaan rabnaa inaan bogaadino marka xukuumadda iyo madaxweynaha la amaanayo amaanta waxa nala leh wiilasha iyo gabdhaha maanta aaga hore ku jira ee gabadalada taagan ee guusha soo hooyay sidii uu hoobalkii halkan fadhiyay ee ka heesay sheegayay askariga ahaa ee al-shabaab xabadda shafka kaga dhufta guusha weeyatayna ku harsanayna amniga iyo guulaha laga gaadhayna halkaas ay ku cadda meesha aan u socda waa dimuqraadiyadda haddii dalkan midnimadiisa iyo horumarkiisa aynu rabno inaynu ka shaqayno waa lagama maarmaan inaynu isu jaangoyno sida dalalka horumaray ee midnimadooda ilaashada ay u jaango'an yihiin taasina waa siyaasad abaabulan oo ku dhisan mabda'a qof iyo cod iyo doorasho iyo dimuqraadiyad iyo xisbiyo ayaa lagula xisaabtami karaa war midnimadii maxaad ka yeeshay madaxweyne muddo sanad laga joogo baan degmada Kaaraan tegay malawa markii ugu horreysay tageen dimuqraadiyadda ay geysay waxaan xasuusiyay iyagoo 120,000 oo qof laga diiwaan geliyay ayaa qaar ilaacadaha soo taagan oo waxay yiraahdeen doorashada ma aqoonsanin waa 2025 waxaan nir warninka degmo doorasho ka gali waayay oo doorashadii oo sanad ka dhiman yahay xisbi samaysan waayay oo wax abaabulan waayay ma bisha u dambaysa doorashadu soo labisanaya oranaya doorkana sharaxna annagu waxaanu qabnaa doorasho iyo dimuqraadiyaddu qolooyinkayga midnimada u taagan waqooyiga ka soo jeeda in dalku isu soo dhawaado oo laga mara dhaliyo midnimada in dalkan siyaasadiisa la jaangooyo dastuurkiisa la dhamaystiro dimuqraadi la noqdaa hiilo weyn bay u gashaa midnimada waxaan madaxweyne ku soo gunaanadayaa maanta iyo mudane iyo marwey inkastoo duruufo adag inagu geedaaman yihiin ana ka mid ahayn dadka iska shaxshaxda ah ee mar walba nimco uun arka oo mar walba aan jeclay indha adag in duruufaha lagu eego caawa waxa ii muuqata rajo weyn oo midnimada Soomaaliyeed dawladnimada Soomaaliyeed iyo da'yarta Soomaaliyeed ba u heelanaysa inkastoo duruufo adag jiraan uma liidano sidaan hore u ahaan jirnay guulo waaweyn waynu gaadhnay isku duubnina waxaynu ku gaadhi karnaa wax badan intaan saraba inaan qiro madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo qadiyadaha nagu hogaamiyana inaynu u mahad celino Soomaalidu dhaliishay u barantay inta badan guuliyo gobolka ummadda Soomaaliyeed u rajaynaya qodobka u dambeeya waxaan u dirayaa fariin kale nimanka reer waqooyiga ee reer Soomaaliland ka soo jeedo maalintan oo kale warbaldoodaha siyaasiga ah iyo reer koonfureed ma konton baynu ka qaadanayna mise 60 heshiis baynu ka nahay oo anaaba taa halkan u taagan warniyo wixii aynu Soomaali wadaagnay ee ahayd Soomaalinimo waa hanti la wada leeyahay waa hanti laga wada faa'iideysto waa hanti cidina aan cid ka sheegan karin war Soomaali hormood baad u ahaan jirteen bariyahan sibaad isu soo ururinaysan oo waad ka soo fagmaysaan dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed intaynan siyaasadda xalin waxa ay Soomaalidu wadaagto
hanay iska takoorina yaana laydinka takoorin dhambaalka raggaasaan u dirayaa wixii siyaasadana dastuurka iyo dimuqraadiyadda iyo dowladnimada baynu xuquuqdeena ku dhacsanaynaa laakiin waxyaabaha masiiriga ummaddu ay wadaagto yaan la dhaleecayn in badan baad dhagxumada ka jirteene dhammaan waan idin salaamaya aad buu